wasiirka caafimaadka dalka Kenya Mutahi Kagwe ayaa goor dhaweyd shaaciyay in qof qaba xanuunka coronavirus laga helay dalkiisa waxa uuna sheegay in qofkaasi ay tahay haweeney ka timid dalka Mareykanka. wasiirka ayaa sheegay in haweeneydani ay ka timid dalka Mareykanka uu gaaray cudurka coronavirus iyadoo soo martay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska. dawladda Kenya ayaa sheegtay inay dabagal ku sameyn doonto dhammaan dadkii ay la kulantay haweeneydaasi tan iyo markii ay ka soo laabatay Mareykanka kadibna ay soo martay dalka Ingiriiska. Kenya ayaa noqonaysa dalkii ugu horeeyay ee geeska Afrika ee laga diiwaan geliyo kiiska caabuqa coronavirus. waxa ay xukuumadda dalka Kenya sheegtay inay karantiilayso dhammaan dadkii ay la kulantay haweeneydani la xaqiijiyay inay qabto caabuqa coronavirus. dawladda Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay joojisay safarada dhammaan dalalka laga diiwaan geliyay caabuqa coronavirus. go'aankaasina uu yahay mid looga hortagayo faafinta viruska oo dalal badan oo ku yaala caalamka saameeyay. hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqday in caabuqa coronavirus uu yahay musiibo safmareen ah oo caalami ah. xanuunka coronavirus ayaa la sheegay intii uu ka dilaacay dalka Shiinaha ilaa iyo maanta ay u dhinteen in ka badan 5,000 oo qof halka in ka badan 100,000 oo qofna ay la xanuunsanayaan. Cabdishakuur Faarax Igale, Honkebel TV.